Soomaaliyeed aan u gurmano qaybtii booliisku kula haana aan ka qaadan haday dhigshu tahay wadana wasi ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saakay halkan isbitaalka booliiska Soomaaliyeed ee Madiina isugu yimaaday inay mar kale dhiigooda bixiyaan annagoo og inay dhiigooda ku bixiyaan furumaha dagaalka annagoo og inay dhiigooda ku bixiyaan difaaca dadka Soomaaliyeed argagixisada khawaarijtuna waxa ay ka shaqaynayeen inay khasaare intan la gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed laakiin waxa naftooda u huray oo hor istaagay oo iska celiyay oo wax badan oo ay ku fikirayeen ka hor istaagay waa ciidamada Soomaaliyeed ee ay hormuud ku yihiin ciidamada nabadgelyada waxa aan aad iyo aad u bogaadinayaa saaka haddana halkan ugu imaaday iyaga iyo ardayda Soomaaliyeed oo iswada garab taagan oo u taagan hawsha badbaadinta iyo bixinta dhiigga iyo gurmadka loo gurmanayo shacabka Soomaaliyeed tani waxa ay daliil u tahay inaynu guuleysan doono insha Allah tacaala inaynu guuleysan doono oo dalkeena nabad uu noqonayo oo dadkeenu ay ku noolon doonaan barwaaqo iyo nabadgelyo iyo tacliin iyo horumar iyo mustaqbal ay ku noolaan doonaan kuwa mustaqbalka la diriraayo kuwa iftiinka la diriraayo kuwa mugdiga doonaya dadka inay galiyaan ama ay ku hayaana maalmahooda inay gabaabsi yihiin oo ay soo gabaabsanayaan taliya iyo isbitaalkan oo ay leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliyeedba waxa uu lafdhabar weyn u yahay ilaalinta nabadgelyada dadka Soomaaliyeed iyo taakulaintooda iyo waxqabadkooda iyo daaweyntooda waxaan rajaynayaa inay soo yaraan doonaan maalmihii dhaawaca iyo dhibka uu jiray oo isbitaalkan howlihiisa caadiga ahay uu ku soo laaban doono insha Allah mar kale waxaan bogaadinayaa ciidamadeena sharafta leh ee karaamada leh ee u istaagay inay karaamadeenna iyo dadnimadeenna ay ilaaliyaan aad iyo aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته